maanta waxaa ka hadli doonaa waxa uu yahay dhuun xanuun, sida loo daaweeyo iyo sida ugu fiican ee looga hortagi karo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد جنالك الدكتور أحمد يوسف كتخصصي عذرات الجود إينا في مرينكا أما عذرات كودع فيره. هدي أد جنالك كعصوب كاي فضلا سبسكرايب ده سيادنا على صعود تمر والبفضلا ريح جنب الالحق. دون حنونك وحنون صوبايو إن أي دلاع دونتا أما إن أي حقنتو waxaana ugu daran qofka uu aad u dareema xanuunka marka uu isku dayo inuu wax laqo. waxyaabaha ugu badan ee keeni karo waa viruska, sida viruska keena hergabka oo kale. xanuunadan viruska uu keenana waxaa lagu yaqaanaa in ay ayaga iskood isku xalliyaan, in uu calaamadaha qofka laga daaweeyo maahane daawo oo exactly la dagaalayso badanaa lama siiyo. waxaa sidoo kale dhici karta in ay ayadana sababto bakteeriyada qaar. maxaa lagu garan karaa marka cudurkan dhuun xanuunka? dhuun xanuunka sidiisaba wuu kala duwan yahay, waxayna ku xiran tahay mar walba waxa sababay. sidaas darteed waxyaabaha guud ahaan lagu garto waxaa ka mid ah qofka inuu dareemo xanuun aad u fara badan. xanuunkaasna badanaa wuxuu la socdaa in meel ka mid a dhuunta ay dilaacsan tahay ama ay xoqon tahay markaas. calaamada labaad, qofka markuu isku dayo inuu wax laqo aad ay ugu adkaanaysaa oo qofku uu dhibsanaya inuu wax laqo. calaamada saddexaad, qofka inay dhibto cunadii, sababtoo mar walba isku dayo qofka inuu wax laqo dhuunta ayaa aad u xanuunaysa, sidaas darteed way ku adkaanaysaa markaas. calaamada afraad waxay noqonaysaa in qanjirada ku hareeraysan dhuunta oo dhan ay bararsan yihiin, aadna ay u gaduudan yihiin. waxaana dhici karta xanuunkooda inuu ku sii faafo qoorta iyo goosaha iyo meelaha ku hareeraysan oo dhan. calaamada shanaad, waxaa laga yaabaa sidoo kale inaad ku aragtid qofka in uu markaas uu leeyahay waxyaabo cadcad ama white patches in ay markaas dhuuntiisa ay ku yaalaan. calaamada kalena waxay noqonaysaa in uu qofka codkiisa markuu hadlaayo xabeeb ay ku jirto, qofkana codkiisa uu aad u isku bedelay. goormuu qofku u baahan yahay marka inuu dhakhtarkiisa arko? waxaa u kala saaraynaa carruurta iyo dadka waaweyn. haddaaba ku aragtid dhuunta inuu ka sheeganayo cunuga oo cunadiina ay ku adkaato inuu laqo, si dhaqsiya inuu qofka ula cararo oo markaas dhakhtarku uu u geeyo. haddii uu qof weyn yahay, haddii qofka ay ku adkaato neefta ama difficult breathing qofka lagu arko, waxaa waaye emergency waa. haddii uu laqista qofka ee aad ay ugu adkaato wax inuu cuno qofka uu ka caaganaado ama uu qofka ay u suuroobi weyso inuu wax cuno, sidoo kale ayadana qofkii emergency waa dhakhtarkii in dhaqsi lala xiriiro waa. waxaa ugu daran oo ugu dambeeya ayadana qofkii in uu yeelan waayo tabar ama tabartii oo dhan inay ka tagto qofkii inuu u ekaado. ayadana waxay keenaysaa in qofka emergency xaaladda uu galo, sidaas darteed waa in dhaqsi la geeyaa dhakhtarka. haddii qofka weyn uu isku arko qandho fara badan iyo madax xanuun joogto ah iyo inay jointska u dhow qoorta ay aad u xanuunayaan, asagana waa emergency markaas in uu meesha ka cararo waaye. haddii codkiisa xabeeb uu ku arkana waa in uu markaas asagana uu dhakhtarkii u tago. intaas marka waxaa waaye calaamadaha emergency-ga uu ku qasban yahay. hadda marka aan isla aragno maxaa sababi kara cudurkan. waxyaabaha sababi kara waxaa u kala qaadaynaa ilaa iyo 3 qaybood. qaybta koowaad waxaa waaye in qofka virus oo dhuuntiisa uu ku dhaco, sida hergabka oo kale ama noocyo badan oo ka duwan oo aan ahayn hergabka. qaybta labaadna waxay noqonaya in infection oo bacterial ah markaas ay dhuuntii ay ku dhacdo. other causes aa jiro oo ka duwan labadaas ka duwan, waxay noqonayaan marka allergies oo kale sida xasaasiyadda. sidoo kaleeto waxaa keeni karo afqaleelka, qofka inuu afkiisa qallo. afqaleelka wuxuu ku imaanayaa badanaa dadka markay jiiftaan, weliba habeenkii ugu badan. qofka afka ka neefsado oo afka kala furaya maantoo dhan afkiisa qaleel uu noqonaya, maadaama hawo badan ay ku dhacayso afkiisa. qaleelkaas marka wuxuu abuurayaa lacerations ama dilaac inay fududaato inuu markaas mucoosaha dilaaco ama afka gudihiisa iyo meelihii u dhowaa dhuunta inay dilaacaan ay fududeynaysaa. qodobka kale oo other causeska ka mid ah oo saddexaad waxaa waaye irritant substance, markaas inuu qofkii afkiisa ama dhuuntiisa markaas ay u gudbaan, sida wasaqda pollutionka oo kale, hawo wasaqaysan oo kale afka inay gasho, ama qofkii inuu yahay qof sigaari cab oo kale, ama inuu yahay qof tubaako markaas ruugo ama tubaako maanta oo dhan dheecaankeeda afkiisa uu ku wado kale, ama qof waxyaabahan dhuunta dhibaya sida alcoholada kala cabo. sidoo kale waxyaabaha dhuunta dhibaya oo irritation ku sababi kara waxaa ka mid ah bisbaaska iyo waxyaabaha la midka cunooyinka ay ku jiraan. dad waxaa jira xamili karo iyo dad aan xamili karin, ayagana waxyaabaha keeni karo dhuun xanuunka ka mid tahay. waxaa kaloo dhuun xanuunka keeni karo murqaha qaar inuu strain uu ku dhaco. strainka marka murqahaas ku dhacayo dhuunta maxaa keeni karo?
qaylada badanaa keeni karta haddii uu qofka aad u qayliyo oo qof xanaaq badan u yahay ama qof aad u qaylo badan haddii uu yahay ayadana qofkii way kusoo laalaaban kartaa maanta oo dhan dhuun xanuunka oo ma ka baxayo waxaa sidoo kale keeni kara dhuun xanuunka inuu qofka qabo gastroesophageal reflux disease ama cuduradan qaabjeexa oo kale oo qofka markaas cunadii uu cunay ee kusoo laabanayso maanta oo dhan uu dib u soo celinayo taasna waxay keeni kartaa in oo acidkii uu gubo dhuunta taasna waxay keenaysaa marka inuu qofka dhuun xanuun uu mar walba experience gareeyo qodobka kale asagana wuxuu yahay in qofka HIV uu qabo difaaca jirka hoos u dhacaya haddii difaaca jirka uu hoos u dhacan markaas in infection walba uu ku dhici karo qodobka ugu dambeeya oo dhuun xanuunka keeni karo waxa waa inay buro dhuunta ka soo baxda ama tumor inuu qofka uu ku yeesho dhuunta kaasna qofka xitaa waxay ka saameynaysaa codka ka damban inuu aamuso qofka uu hadli waayo laga yaabaa laqistana sidoo kale way ku adkaanaysaa xitaa waxaa laga yaabaa in ay neefta ku adkaato ku neefsanayo qofka waxyaabo mararka qaar marka waxaa jira riski ah oo sii badinaya khatarta waxaa ka mid ah da'doo kale marka loo fiiriyo cudurkan dhuun xanuunka ilmaha uu aad ugu badan yahay weliba ilmaha carruurta jiro 3 sano ilaa 15 sano intay ka gaarayaan marka loo fiiriyo dadka waaweyn ayaga uga badan waxaa oo riski ah badana inuu tubaako isticmaalo in waxyaabahan kiimikaaliska mar walbeeto oo dhuunta gubayo kale inuu qofka ka fogaado ayadana riski badan ay keenay qofka inuu dhuunta xanuunana waa suuragal haddii uu ka shaqeeyo xitaa inuu isku dayo maask inuu xirto mar walbana uu ka fogaado aad ay muhiim u tahay waxaa riski groupka sidoo kale ku jiro dadka oral sexiga wax la sameeyo ama xubinta taranka afka geliyo khatar waxay ugu jiraan in infekshanno badan oo dhuunta markaas ay ka qaadaan hadday tahay xubin taran aan nadiif ahayn badanaana waxyaabahaas carruurtoo kale laguma arka dadka adaltiga lagu arkaa ama dadka waaweyn sidee marka cudurkan looga hortegi karaa sida ugu wanaagsan ee looga hortegi karo waa in mar walba laga fogaado wax walboo jeermis keeni karo si looga fogaado marka wax walboo jeermis keeni karo waxaa ugu fiican in mar walba gacmaha la dhaqdo sababtoo wax walboo afka tegaya badana gacmaha geeyo gacmaha mar walbay nadiif yihiin oo jeermis la'aan yihiin jaaniska ay ugu gudbaan oo yar tahay sidoo kaleeto inuu gacmihiisa mar walba qofka uu ka ilaaliyo wejiga inuu ku taabto asagoo hubin inay nadiif yihiin sidoo kale qofka inuu iska ilaaliyo inuu cuntooyinka iyo galaasyada aan nadiifka ahayn qofka cudur walba oo qabo uu ku soo gudbin karaa haddii mar ay ku taabato candhuuftiisa ama candhuuftaada ay taabato ama dhiiggiisa ama dhiiggaaga uu taabto iska ilaaliya mar walba inaan la sheergareenin oo la iska ilaaliyo inta la awood waxaa ku xiga in oo qof qufaciisa ama hindhistiisa mar walbeeta la iska ilaaliyo uu maask ku xiran yahay qofka markaa la hadlaysidna distance fiican inuu kuu jiro mar walba at least 1 tilaabo ama 1 mitir iyo ka badan inuu kuu jiro so preventionka si guud haddaa fiirisid waxaa kaaga soo baxayso waxyaabo yar marka laga bixiyo guud ahaan dhinacyo badan inuu ka taataabanayo nadaafadeena uu xoogga saarayo qof hadduu nadaafadaas xoogga saarano in markaas uu prevention fiican uu sameeyo ama ka hortag fiican inuu sameeyo sidee marka cudurkan lagu ogaan karaa dhakhtarkaaga wuxuu u baahan yahay si uu cudurkan u xaqiijiyo inuu kuu sameeyo waxa la dhaho throat swab oo dhuuntii markaas dheecaan laga soo qaado wixiina la arko inay yihiin bacteria ama inay yihiin virus sida kaleeto waxaa loo baahan yahay inuu examination ku sameeyo dhuunta sida inuu jiro dilaac ama buro inay jirto ama markaas inuu laceration ama irritations inay jiraan in markaas la xaqiijiyo waxaa u gudbaynaa marka see loo daaweyn karaa cudurkan daaweynta cudurkan qaybna waxaa iskale dhakhtarka qaybna waxaa iskale bukaanka badanaa waxyaabaha laga rabo waxaa waa in uu dhuunta mar walba uu nadiifiyo wuxuu kaloo u baahan yahay daawooyinka uu dhakhtarka soo siiyo si regular inuu u isticmaalo sida badan haddii markaas ee tonsiliska cilada aysan ka jirin jaaniska qofka dhuun xanuunka uu haayo oo qalliinku aad u yar yahay haddii ay jirto marka cilad u baahan in la qalo sida buro kaleeto haddii ay meesha ka soo baxdo ama tonsiliska aad ay u jiradaan ama qumanka waxa aan dhahnoo kale qanjirada qumanka ay aad u bararaan ama aad ay u jiran yihiin markaas waxay noqonaysaa in qofka qalliin loo sameeyo hadday u baahan tahay dhuuntaada in daaweyn lagu siiyo hadday virus tahayna markaas in qofka biyo cab la dhaho qandhada heese markaasna laga jebiyo marka si uu u daaweeyo jirkiisa waxyaabaha laga rabo waxaa ugu horeeya in uu nasto ama resting fiican inuu sameeyo hurdo fiican dhuuntana qofka inuu nasiyo uu qeylo badan iyo buuq uuna gelin waxaa kaloo laga rabaa qofkan inuu biyo ku filan markaas uu cabo steepka saddexaad waxaa waaye mar walbeeto cunno aan dhib badnayn oo dhuunta aad aan u dhibayn inuu qaato qofka biyo kululna inuu mar walbeeto uu cabo biyo kulul markaa dhahay marka badanaa waxaa ka wada biyaha caadiga warmka ah oo markaas qandaca ah ka wada waxyaabaha mar walbeeto irritationka sababayo oo dhuunta inuu marka qofka xanuunta sababayna in laga dhaafo always qofka biyo cusbo leh inuu ku luqluqdo oo dhuuntiisa uu mar walba ku nadiifiyo biyo cusbo leh intaas waxay tala caafimaad
usbuuc walba waxaa isku dayaynaa in dhegaystayaasheena mawduucyada ay soo codsadaan in aan u soo deyno. fadlan ku soo qor commentiga mawduuca aad danaynaysid in markaas laga soo hadlo. hadduu ilaahay yiraahdo waa ka soo hadli doonaa. aad u mahadsantihiin dhammaantiin.